waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhawaa janaalka iyo gaarka Zakariya Cabdi oo kaga bogan kartiin macluumaadkii ugu dambeeyay arrimaha sportska fanka iyo sidoo kaleeto wixii caalamka laga hadlay markaas gaar ahaan arrimaha bulshada mar walba waxaan u taaganay xog xaqiiqo ah in idin la wadaagno iyo sidoo kaleeto madadaalo asluub ku dhahan waxaa muhiim ah in aan kala war qaadano sidoo kaleetana wixii talooyin mar walba idin ka qaato fadlan janaalkayga subscribe saar sidoo kalena gambaralka riixo si ururka galab wanaagsan saaxiibayaal kuna soo dhawaada xubinteena ee galabta iyo kooxda maxaa ka cusub waxaan ku eegi doonaa waxyaabihii ugu dambeeyay kubadda cagta waxaan ku bilaabi doonaa Juventus ayaa lagu soo warinaya inay ku guuleysteen saxiixa Sergio Milankovic oo qadka dhex kaga ciyaaray Serbia iyo Lazio sida warbaahinta Talyaaniga ay qorayaan Corriere dello Sport Juventus ayaa dabcan Lazio u bandhigtay lacag gaaraysa 100 milyan oo euro balse cash ahaan uma siin doonto oo dalabkii Lazio ay ka soo baxeen waxaana Lazio lagu wareejinayaa ciyaartoyda kale Leonardo Spinazzola iyo sidoo kale Cristiano Romero waxaana arrinkan soo dhaweeyay tababaraha kooxda Simone Inzaghi oo aad u doorbiday formation 3-5-2 uu ciyaaro waana laba ciyaaryahan aad ugu wanaagsan Spinazzola Juventus inuu boos joogto ka ayuu ku dhiban yahay waana ciyaaryahan garabka bidix ka ciyaar aad u tayo wanaagsan Romero Juventus ayaa milkiidiisa kale wuxuuna dabcan xilli ciyaareedkii dhawaala jooga amaah oo iskala uu kula jooga amaah kooxda Genoa sadarteed ciyaaryahankan oo ku soo laabanaya Juventus wuxuu qayb ka noqonayaa heshiiska Sergio Milankovic waana ciyaaryahan garabka midig ka duula ee daafaca dhex geli karo wararka ay intaas ku darayaan in Paris Saint-Germain oo ku hungowdo qaadista Sergio Milankovic maadaama ciyaaryahankan Serbiyaanka asigana Juventus uu doortay haatan Talyaaniga waxay leeyihiin Lazio iyo Juventus agreement ay wada gaareen Leonardo Spinazzola iyo Sergio Romero iyo Cristiano Romero waxay tagayaan caasimadda Talyaaniga ay tagayaan halka Sergio Milankovic uu imaan doono magaalada Torino isla warar kale ugu dambeeyay sports waxaa kamid ah Inter Milan ayaa sheegtay inay ku dhawaaqi doonto maalinta Isniinta imaatinka ciyaartoyda kale Edin Dzeko iyo Alexander Kolarov oo labadaba Roma ka imaanayaan waxayna kooxda Roma ku wareejin doonaan lacag kaash wiilka dhalinyarada weerarka ciyaar lagu magacaabo David Marola Corriere dello Sport ayaa sheegaysa in Antonio Conte oo labadan ciyaaryahan ku faraxsan yahay keenista garoonka San Siro wuxuuna u arkaa laba ciyaaryahan oo ka faa'iideysan kara ama u adeegsan kara qaabka uu weerar galo ama u howlgalo taasi oo dabcan 3-5-2 ama ay raadeen formation kaas oo Conte caan ku yahay wuxuuna dabcan Kolarov u adeegsan doonaa garabka halka Edin Dzeko uu isticmaali doono ciyaaryahan kubadda u joojiyay maadaama uu geli doono booska Mauricio Icardi Bosniankan Dzeko waa lagu qiimeeyaan 13 milyan oo euro waana ciyaaryahan aad u tayo wanaagsan sidaa darteed waxaa la isku raacay dabcan in kooxda Roma la siin doono 10 milyan oo euro iyo wiilka 19 jirka aan ka dhawaajinay David Marolo halka ninka lagu magacaabo Alexander Kolarov la sheegay inuu si bilaash ku imaan doono waana wararkii ugu dambeeyay oo kooxda Inter Milan haddii aan eegno waxyaabaha kale ee haatan soo baxay Milan ayaa la sheegaya sida uu dhaqsiya badan inay ku dhawaaqi doonto imaatinka macalinkeeda Marco Giamboli kaasi oo 2 sano heshiis la gaaray kooxda Milan oo naadiga leelin doono iyo sidoo kale sanad saddexaad oo dabcan asiga dooq iska leeyahay inuu San Siro soo joogay in kaleeto Sky Sport Italia ayaa warinaysa in Sampdoria ay siisay macalinkan warqadii ruqsada loona fasaxay inuu ku biiri karo Milan waxay bixiyeen lacag gaaray 3 milyan oo euro oo magdhow ah sidoo kale macalinkan 2 sano heshiiska uu saxiixay sanad kasta wuxuu qaadan doonaa 2 milyan oo euro taageerayaasha Milan waxay leeyihiin welcome Giamboli to Milan ay leeyahay Milan ku soo dhawaaw qorshaha dhismaha kooxda Milan asiga ayaa hogaamin doona waxaana lagu dhawaaqi doonaa si rasmi ah lagu dhawaaqi doonaa intaas aan kaga gudbeynaa wararka Milan ama Inter Milan gudaheeda ka soo baxay haddaan eegno waxyaabaha ugu dambeeya sportska weyn waxaa kamid ah Wayne Rooney ayaa kaga digay kooxda Manchester United inaysan soo ceshanin ciyaaryahanka lagu magacaabo Gareth Bale wuxuu yiraahday dabcan Bale uma wanaagsan in kooxda Manchester United la soo celiyo sababta wuxuu yiraahday mustaqbalka United ma baana xilligan oo kale Bale in la soo celiyo Wayne Rooney oo kooxda United waqti dahabi la qaatay ayaa dabcan ka cabsi qaba United inay khasaare xoogan ku gasho dhanka lacagaha haddii ay soo qaataan Gareth Bale sidoo kale wuxuu kaga digay soo qaadashada Cristiano Ronaldo ama aragtida Ronaldo in lagu soo celiyo garoonka lagu magacaabo Old Trafford wuxuu yiraahday haddii Ronaldo iyo Bale ay ku soo laabtaan Old Trafford kama dhigna mustaqbal kooxda inay hagaajin karaan kaliya waxay qaban karaan short term solution ama hal hadda muuqdo sanad ama 2 sano kooxdan waxaa kaga bixi doonta mushaar waali qarashaad waali laakiin wuxuu sheegay dhismaha mustaqbalka Ole Gunnar Solskjaer ee Manchester United ma toosi doono sadarteed Wayne Rooney wuxuu garab istaagay aragtida macalinka Norwegianka kooxda in lagu dhiso keenista ciyaartoy dhalinyaro British sidoo kale tan dabcan la garab istaagay ciyaartoyda la keenayo mustaqbal kooxda lagu dhisi karo Wayne Rooney wuxuuna soo dhaweeyay aragtida dhawaan la keenay Daniel James oo United 18 milyan bond kaga soo qaateen kooxda Swansea City waana ciyaaryahan Wales oo dabcan qadka dhexe ee garbaha ka duuli kara marka Rooney wuxuu leeyahay rugcadayaasha hal iska daaya kooxda waxay u baahan tahay dhalinyaro la keeno dhalinyaradaas dabcan wax badan u qaban karaan dhanka kooxda Real Madrid macalinka Zinedine Zidane waxaa laga soo xigtay inuu soo dhaweyn doono aragti kasto ama lagu dhiibay Vinicius Junior sida shabakada ay qorayso macalin Zidane shaki kama qaba tayada wiilkan Vinicius Junior laakiin wuxuu rabaa in ama lagu dhiibay 18 jirkan si uu u helo Janis dheeraad oo aragnimo ku helo aragtidaasna tababar Zidane waxaa la qaatay madaxweyne Florentino Perez waxaana dabcan isweydiiyay halkee ayuu aadi doonaa Vinicius Junior Zinedine Zidane wuxuu soo jeediyay qaar kamid ah kooxaha la liigaha ee kaalimaha hoose ama qaybaha dhexe table Real kaga jira
in la siiyo ciyaaryahankan si uu aragnimo u helo sidoo kale waxaa la isku soo qaaday ajanda ee dabcan in meel ka baxsan Spain la siiyo waxaa jiraan dalabyo ka imaanaya Talyaaniga iyo Ingiriiska laakiin lama og Real Madrid safar dheer gelin doonto wiilkan waayo macna sanadii Zidane wuxuu rabaa inuu u kuur galo habka horumarka ciyaareed oo uu sameeyo wiilkan kooxaha ilaa haatan la sheegay la xiriirina waxaa kamid ah Real Valladolid oo dabcan uu iska leeyahay Luis Nazario Dalimo Ronaldo ayaa doonaysa wiilkan inay ka faa'iideysto sidoo kale tan ay barbaariso marka Zidane aragtidaas ayuu maamulka gadaya wayna la qaateen dhanka kale haddaan fiirino kooxda Arsenal ayaa la sheegay dabcan inay bartilmaameed ka dhiganayso ciyaaryahanka lagu magacaabo Jordan Fritos oo naadiga Fiorentina qadka dhexe kaga ciyaar Kuiba ayaa qoraysa Franciscan in haatan Gunners u wacdeen waxayna ku heli karaan 20 milyan oo pound ciyaaryahan Jon Fritos ayaa iska diiday ku biiritaanka Napoli kadib markii ay heshiiyeen kooxaha Viola iyo Napoli saacadii ugu dambeeyay ayuu qaatay go'aan inuusan Napoli ku biirin wuxuuna haatan u qaltaagaya ku biiritaanka kooxda kubadda cagta Arsenal waxaan lagu heli karaa 22 milyan oo euro waana qiimo lacageed oo Gunners ka bixin karto Fiorentina xagaagii 2017 ayay Fritos keensadeen markaas Aston Villa 7 milyan pound kaga soo qaateen haatan Fritos wuxuu diyaar u yahay dib inuu ugu laabto Premier League Arsenal wuxuu u bedeli doonaa Aaron Ramsey sida warbaahinta Ingiriiska ay qorayaan iyo shabakada Faransiiska ee Kuiba dhinaca kale haddaan fiirino waxyaabaha kale ee xiisaha badan ee haatan jira maxaa kamid ah agaasimo Leonardo ayaa ku laabanaya kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain sida madaxda sare ee Paris xaqiijiyeen laakiin imaatinka waxay ka dhigantahay Leonardo bixitaanka Neymar Jr waxaa la sheegay Neymar iyo sidoo kale Leonardo inuusan cilaaqaad wanaagsan ka dhexin labadan Brazilianka ah sidaarteed maamulka Paris waxay dooran doonaan Leonardo ay kalsoonida u dhiibaan waxaana meesha ka bixi doona Sporting Director ninka lagu magacaabo Antero Henrique halka Neymarna marnaba uusan jeclaysan doonin imaatinka Leonardo sida la og yahay warbaahinta Brazilianka ay qorayaan Neymar iyo Leonardo wax cilaaqaad wanaagsan kama dhaxeeyo waana shakhsiyad hawada iska naceen gaar ahaan Leonardo kama helo ciyaartooyda isla weyn ama ciyaartooyda mar walba tooda kaliya loo yeelo wuxuuna rabaa Leonardo in la keeno Paris Saint-Germain ama ay joogaan ciyaartooy asaga kaliya ka amar qaataan Leonardo xushmad weyn ee Paris Saint-Germain u hayaan sababtoo ah intii u dhaxeysay 96 xilli ciyaareedka ayuu kooxdan u ciyaaray sidoo kale mashruuca Paris lagu dhisan asaga mas'uulka ah 2001 markii loo dhiibay muddo 4 sano ayuu Paris kaga dhigay koox awood badan sidaa darteed waxaa la leeyahay imaatinka Leonardo waxay ka dhigan tahay bixitaanka ciyaaryahanka lagu magacaabo Neymar Jr Liverpool maxaa ka cusub kooxda Lille maamulkeeda ayaa si rasmi wax u xaqiijiyeen wali wax dalab rasmi inaysan ka helin dhanka Liverpool oo ku aadan ciyaaryahan Nicolas Pepe Liverpool ayaa qoraysa wararka sheegan Liverpool dhawaan ka gudbis dalab 70 milyan pound ciyaaryahankan Ivorianka inuu wax kama jiraan yahay kadib markii madaxda kooxda Lille ay xaqiijiyeen wax dalab oo dhanka Liverpool ka soo gaaray inuusan jirin ciyaaryahan Nicolas Pepe dhawaan ayaa dabcan wuxuu ku soo baxay mid koox walba ay doonayso 22 gool ayuu liiganka Faransiiska ka dhaliyay wuxuuna Lille ka caawiyay kaalinta labaad inay ku dhameystaan Liverpool waxay leedahay radiska ilaa haatan bartilmaameed ay ka dhigan ciyaaryahankan laakiin wax dalab ma aysan gudbin tababara club ayaa bartilmaameed ka dhiganaya Ameer baadi gooba ciyaaryahan weerar ka ciyaari karo kaasi oo gali kara beddelka Daniel Sturridge oo dhawaan kooxda iska fasaxday balse Lille waxay leeyihiin Liverpool lankooda wax dalaba oo naga soo gaara malahan Liverpool laga rabaa marka dabcan in arrinkaas ka jawaab celiyaan ama ciyaaryahan kale ay raadsadaan dhanka United maxaa ka cusub Manchester United waxaa laga diiday dalab 40 milyan pound ay ka gudbeen Aaron Wan-Bissaka oo garabka midiga daafaca kaga dhelo Ingiriiska iyo sidoo kale kooxda Crystal Palace haatan dasan waxay qoraysaa United waxay ku qasbeen inay gaaraan dalab 60 milyan pound hadii ay doonayaan ciyaaryahankan gacanta inay ku soo dhigaan Manchester United marka hore lacagta ay gudbiyeen way ogaayeen in laga diidi doono laakiin haatan ay ogaadeen dalabka rasmiga ah u baahan tahay Palace waana 60 milyan pound waa 20 jir Aaron Wan-Bissaka kaasi oo Premier League si heer sare kaga dhex muuqdo wuxuuna ka mid yahay ciyaartooyda xulka Ingiriiska da'da koosisa 20 jirada ee loo xushay tartanka qaramada Yurub ee 20 jirada ee Talyaaniga marti gelinayaan waana ciyaaryahan aad u tayo wanaagsan sidoo kale Aaron Wan-Bissaka qandaraaska kula jira Palace wuxuu ku egyahay June 2022 kooxda Eaglesna wax culays ma saarno oo ciyaaryahankan waxay ku doonayaan 60 milyan pound United ayaan laga rabaa lacagtaas inay bixiyaan hadii ay rabaan gacanta inay ku soo dhigaan warbaahinta Isbaanishka dhamaantood waxay qorayaan in kooxda Inter Milan ay ku guuleysan rabto saxiix ninka lagu magacaabo Lucas Vazquez oo lagu qiimeeyay 30 milyan oo euro AS Mundo Deportivo Sport waxay qoraan in laga aqbalay Inter Milan dalabka ka socda dhanka lagu magacaabo dhanka ku aadan dabcan wiilkan Vazquez kaliya shabakada Marca ayaan ka hadlin dhamaan shabakadaha kale waxay xaqiijinayaan in ciyaaryahankan uu ku sii jeedo kooxda Inter Milan Sky Sport Italy waxay warinaysaa in agaasimaha Inter Milan ciyaaraha Piero Osili oo Madrid ku sugan yahay sidoo kalena madaxda kooxda uu la hadlay Lucas Vazquez oo bisha dambe 28 sano jirsan doono wuxuu ka mid yahay ciyaartooyda kooxda isaga tagayo Real Madrid wiilkan way fasaxayaan ayagoo Espanyol June 2015 kaga soo qaateen 1 milyan oo euro oo kaliya qandaraaska uu kula jiro wuxuu ku egay 2021 Inter 30 milyan oo Vazquez ku qaadanayaan ciyaaryahankan Zidane ma u baahna sababtoo Hazard iyo Jovic ayuu helay wuuna ka maarmaa aan fiirino waxyaabaha kale ee Euro Berberiska
wargeysada Yurub ee galabtan qorayaan waxaa kamid ah Atletico Madrid hore ayay u fasaxeen Antoine Griezmann waxayna haatan ku dhow yihiin soo qaadashada Edinson Cavani laakiin Atletico Madrid waxay aad uga careysan ilaa ay haatan Griezmann inuusan Barcelona ku biirin Barcelona waxay rabaan in la gaaro 1 July markaas ciyaaryahankan ay ku qaadan karaan 120 milyan oo euro laakiin Atletico waxay isleedahay xilligan aan la ka gadan ciyaaryahankan waana waqtigan ay u baahnayeen lacag oo ilaa 200 milyan oo euro qandaraaskiisa lagu jebin karo wararka waxay intaas ku darayaan Atletico Madrid waxay iibin doonaan ka hor intaysan Griezmann iibin ciyaaryahan Rodri oo ay ka iibinayaan kooxda kubadda cagta ee Man City oo 70 milyan oo euro ku qaadanayaan iyo ciyaartoy kaleeto lacagahaas kaashka ay ka helaan ayay ku soo qaadan doonaan Cavani oo kooxda Paris Saint-Germain u sheegtay Atletico Madrid in laga iibin doono laakiin Cavani ilaa 80 milyan oo euro ka yar kuma fasaxi doonaan sidaa darteed Atletico culayska haystaa waxay tahay kaash ma haystaan Cavani heshiis hordhac ay la gaareen boos joogtana way u ballan qaadeen laakiin lacagtii lagu gadan lahaa ayaa waxay u baahan tahay aruuris waan arki doonaa marka waxyaabaha ka soo kordho dhinaca kale aan fiirino Real Madrid waxaa ka soo baxayo in xagaagan ay qarash gareen doon 350 milyan lacagta ganiga sterlinka lacagahaasna waxaa dhameystiri doonaan Paul Pogba iyo Christian Eriksen midkood shabakada Marca waxay leedahay EAS Real Madrid waxay ugu talagashay total expenditure kama qarashaadka guud ee xagaagan inuu gaaro 400 milyan oo euro ama 356 milyan oo lacagta ganiga sterlinka ilaa iminka kooxdan waxay soo qaadatay Eder Militao Luka Jovic Rodrigo Goes iyo sidoo kale Eden Hazard waxaa u dhiman ciyaaryahan qadaxa awood badan sidaa darteed waxaa laga arinsanayaa yaa la soo qaadaa ma waxaa la keenaa Paul Pogba oo 160 milyan oo euro ilaa 180 milyan oo euro ay ku doonayso Manchester United market value-giisa mise waxaa la soo qaadaa Christian Eriksen lagu heli karo 80 milyan oo euro ilaa 100 milyan oo euro sidaa darteed Real Madrid oo aan rabin nidaamka dhaqaale wanaagga Yurub inay jibiyaan ama culays kala kulmaan waxay doorbidi doonaan Christian Eriksen oo 80 milyan ilaa 100 milyan oo euro ku heli karaan waana ciyaaryahan tay wanaagsan ama waxaa jiri karo option ah inay dib u dhigaan keenista Eriksen oo ay qaar kamid ah ciyaartoyda kooxda iibiyaan sida James Rodriguez Gareth Bale iyo sidoo kale Lucas Vazquez iyo Matthew Kovacic lacagaha ay ka helaan ka bacdi lacag ku daraan oo ay Paul Pogba ku soo qaataan balse sida guud aragtida way jirtaa Marcana dadka ayaa fikirkooda weydiinaysa yaa galaatikada kooxda lagu dhameystiraa ma Eriksen la keenaa mise Pogba la keenaa waqtiga ayaa ugu dayn doona dabcan ciyaaryahanka dabcan Madrid ku guuleysan doonta saxiixiisa dhinaca Chelsea football club maxaa ka cusub dalabkii ugu horeeyay ee Juventus ka diideen ku aadan left back ninka lagu magacaabo Emerson Palmieri Juventus ciyaaryahankan gacanta ku soo dhigtay ka go'an tahay Marushi Sarr ayaa lagu wadaa 48 saac lagu soo fool inuu noqdo tababaraha koowaad ee kooxda kubadda cagta ee Juventus sadarteed Juventus oo isla markii waxay bilaabeen inay ka fikiraan qorshayaasha Sarr iyo ciyaartoydu u baahan yahay calciomercato.com waxay qoraysaa in Juventus dalabkii ugu horeeyay ka gudbiyeen Braziliankan asal ahaan laakiin Talyaaniga doortay waana laga diiday ilaa ay haatan lama sheegin qiimaha Juventus dalab ahaan ay ka gudbiyeen ciyaaryahankan laga diiday balse waxaa la og yahay in Chelsea ay Janaayo 2018 kaga soo qaateen Roma ciyaaryahan Emerson 20 milyan lacagta euro sadarteed lacagta dalabka koowaad ee Juventus laga diiday lama xaqiijin laakiin qiimaha uu Chelsea ciyaaryahanka ugu fadhiyo waa 20 milyan oo euro dhanka Barcelona maxaa ugu dambeeyay kooxda Barcelona gabi ahaanba waxay diideen inay activate gareeyaan ama toos ula wareegaan Kevin Prince-Boateng oo 6 bilood amaah kula joogay kadib markii 5 milyan oo euro ay kaga soo qaateen naadiga Sassuolo waxayna xaq u lahayn toos inay u iibsadaan laakiin ciyaaryahankan way iska daayeen 32 jirkan Ganeska Barcelona wuxuu u ciyaaray 15 kulan dhammaan tartamada kala duwan xilli ciyaareedkii dhawaan soo ilaaday 5 goolna wuu dhaliyay goolna wuu caawiyay darteed Barcelona gabi ahaanba way iska fasaxeen Kevin Prince-Boateng oo hore ugu soo ciyaaray kooxaha Tottenham, Dortmund, Genoa, Milan, Eintracht Frankfurt, Las Palmas iyo naadiyo kale Barcelona waxay xaq u lahayn inay ku iibsadaan 8 milyan oo euro waana iska daayeen kooxdiisii ayuuna ku laabanaya ninka lagu magacaabo Kevin Prince-Boateng daawadayaasha qiimaha badan intaas aan ku soo ilaalinaa xubinta ee galabta iyo kooxdaada maxaa ka cusub fadlan qodobkii ku soo jiitay fikirkaaga ka dhiibo waxaan soo qaadanay qodobo aad u xiiso badan sidoo kale haddii aad tahay daawada nagu cusubne fadlan channelkayga subscribe saar assalaamu calaykum waraxmatullahi